tiradooda meeqay dhan yihiin 4 ilaa 5 waaye waa iyo daroogada ka ganacsanayo isa dhaf aniga ayaa meel soo saaraya وي أصحابتا runtii aad kula kacsantiin waxaan jeclaan lahaa inaad adiga shakhsiyan magacaaga ii sheegto maxaad qabataa ii sheeg maxay kula tahay kisteedu waa tan doq iga qabso waxaan u baahanahay lacagtoo dhan lacagtoo dhan ah سمينا قاع كروقات وي صاحبك بريا waxa qaadanays qaado aniga hay dil iskayda aamus runtii horta hadda ka hor naag ayaa waxa lagu arkay meel aysan joogin saasay tahay qaanuunka markii la akhrinayo waxyaabahan oo kale waa waxyaabo mataqaana aan aqliga galaynin laakiin qaanuunka markii si fudud lagu yaro waxa jira nin la yiraahdo Hammurabi indhana laga baxsaday ninkaas markii ugu dambeysay waxa la sheegay fooq inuu iska soo tuuray isaga waa runtaada hore waxa loo yiri العين بالعين ما فهمت هذا كل أرنتم ما بحسوا صومان يدينك رنهانتي وحن دنيا 10 مهمة إن ندين شرحه 10 كاس قلب كيس كوبات أخلاقنا نلوش مهمة يوتاي ولو تقف كدي صن أخلاق لهين يعني نلوش وح شرف أم لهن أو دتك أكتدو كبهدلين هاي صدرت هذا دولة ده حديدة أخلاق لا يوشقينيان وح معقول الدولة ده إن أي شرف أي يلا تقول احترام شقالات الدولة ده هدي إسن احترام لهين مع أخلاق إسن لهين وحجرا معهن sidaas darteed dawladda hoos dhac ugu imaad Soomahan warkadii cadee tuugada mar walba dawladda way ka baxsadaan dawladda inay soo qabato iskuma taxloojiso maxaa yeelay mar walba dadka ay lacaan ilmaha saqiirada ay dhibaato u geystaan cid wax ka dhahdana ma lahan runaantii askarta in la eeday waxa sababaya يعني أخلاق لأنت معناها أسكرتها دي مركه هرب الله توبري لها ولا سين لها نظام في عن مركز أسكرته وحين نقول لها إن كوش قوة كسب حياة صابت كينيس توجد إن لا عير صدق أما يبحثان نوح كينيس أسكرته أو أن توبر هاي سنين أما بعلمي أنا نقونين لكن والله حلم دون أنا جوان نقون كرنا دولة دوفي عن ودنك عالم كان ولا تهتم كرنا هدي عن اسكو حرنانه هلو بيبي قرالي نقوان صوتها وانوغهي aniga ba sidoo kale aan soo habsam xogaa wadada ayaan ku soo jaam garoonay marka iga raal noqo okay waa caadi inta kale iga waran gabadheedii yareed xaaladeedu waa sideen iga sheekay iskuulkeedii waxeedii jidka jaamlu waxa wax kala ma jiraan okay gabadheedii inaan kula hadlaan doonayay adii meel hadleena misa meel hadlaysid ma iyada xogaa mashquulka ku soo gashay okay waa yahay socda laakiin saxooga jaam ayaa yiri laakiin waqtigiina la shatan waa muhiim soomahan waa runtaada laakiin cashada aan noo diyaarinay caawana ana noo diyaarinay ha ka walwalin okay wad maadsantaa xabiib yes in laakiin xabiib ila hadda iimaad sheegin meeshaad qabanaysa adiga maanta adduunka wala hormaray GPS aba jira moogido waan ogeynaa isticmaasho adiga xaafadayda si socota in sugbal wada furanayaan arkay okay bello waa ku jeclahay okay xabiib sidoo kale gabadhii sidoo kale bye inantayda quruxda badneed adiga ma taqaanaan hooyada waxay ka shaqeyso
ويا صوصر دروغده وراني دروغ ما هي آمنة وهاي صوصر وروا ما حيفتش ورقي برصف يعني يقبل هو كقات وراني هي إسلام صوت ما دروغدي لعقت واسكو دا سوما ما يا دروغ ما سلام حالة ما هي آمنة أنا وكادي صاحب سدا وحو أركيس معهن وكادي وكبريا هاي ما شبه كدعاه تريقا وانكو سلام أودرا وأني رنانتي فرصة دي هشو يصوح وانكو جعلها يباي أحسكين مداي كما قنت يقريح ساعة حتى قاريان تذكر لقبل إذن واي لجريتي إن وحن كويدين صلى الله وشوض إلا وقت انتلك أي قادني سانا مايا وانكو فهمي دبات ملان اوكي واد ما سنتاي وايه اوكي باي باي اودر امر لباد ايان كسو وعي دور مرنا داي وان كسو وعي جواب يسو علي هديد مسيد كان aragto واد ما سنتاي انينا ودada ayaan hadda ku soo jiraa اودر way iga cabsiisay run ahaantii دكتور نور كراي adiga miyaana anigana miliis ayaa la dhahaa gabadhana waa dambi baare waa ka xunnahay run ahaantii annaga akhbaarti waa دكتور كراي waan ka xumahay gabadhaadii xaaskaaga arrintii ku timid aad ayaan uga xunnahay maya mid ma ka aqoonsan kartaa nimankan okay waqtigaaga qaado kaas ka saddexaad ee badaxda jira waa fiican tahay mahadsanid adiga familkaaga kugu gaangistirayaal ayaa dileen aniga marka waxaan ku dhihi lahay isdaji wax walbana xal ayaa loo helayaa marka annaga ayaa ku raad joogna waxba ha ka walwalin intaasoo keliya maya intaasoo keliya aniga kuuma hay laakiin waxaan kuu sheegayaa familkaaga waddo qaldan in ay ku socdeen saasayna ku dhinteen ma noqon karto sababta ay ku dhiman karaan midaas waa qalad waxaad sheegayso xaruntan aniga waxaan ka shaqaynayay 8 sano marka waxaa loo baahan in ay aamintid ilaa iyo hadda annaga kama jiifan arrinta adiga kugu imaaday dadka falkan geystana gacanta ayaan ku soo dhigaynaa laakiin waxaa jira hal qof oo aragtay markii la dilayay xaaskaaga iyo cunugtaadaba marka qoftaasna annaga ayaa waraysanay wax walbana way noo sheegtay qofkaas waa ku tusi karaa weliba waa la kulmaysaa waa balon arrintaasna aniga igu daa don't worry دكتور كراي ما بحكي رنانا هذا waan ku raacayaa waad maasanta askari waan ka xumahay dhibaato ma lahan laba su'aal ayaan kuu soo bandhigayaa Amanda adigana waxaad ii sheegtaa taariikhda aad dhalatay June 4 1979
adiga maxkamadda ayaa lagu gudbinayaa ogow maxaad iga damacsantiin aniga ii sheega bal annaga wax aan kaa damacsannahay ma laha adiga tiigar maa tahayna way muuqataa midaas nin weyn ayaa ku hor fadhiyo markaa dhalanaysa miyaa magac laguu bixi traagar aniga qofka u xirxiran miyaad ii malaysaa haa waa idii xirxiran tahay haa aniga ayaad ii xirxiran tahay halkanna waxaad u joogtaa aniga su-aal walba aan ku weydiiyey inaad jawaabtiisa ay siisid aniga maiga shakisanta idinka annaga waa kaa shakina wejigaagana markii la fiiriyo qof dilay ayaa ugu eg tahay haddiiba arrintan aad iiga shakiseen anigaaba nasiib haddaan lagu xirayn ninkan meesha wuxuu la fadhiyaa maalaa yacni dembigana markuu geysanaya waxaa jira qof markhaati oo arkaaya marka naga daaya maalaa yacnigiisa dembigiisa wuu cad yahay waad u jeediin marka maalaa yacnigiisa naga daaya arrimihiisa naga soo afjara inuu isbadbaadiyu rabaaye taliye runtii gabadhan waxay sheegaysa waa beenteeda aniga dembi aan lahayna ma rabo inaan qoorta liigeliyo aniga xaafaddaas yaraanteeda waan kusoo koray adiga runtii inaad noo sheegtid ayaa muhiimadda marka runta ka hadal anaga maalaayacni iyo been iyo barbagaan ma rabnaa taliye aniga nin weynoo la yaqaanayaanahay xaafaddaasna waan kusoo koray waan kusoo barbaaray yaraanteeda qooleyda iyo balanbaalista iyo waxyaabaas ayaanu ku cayaari jiray xaafaddaasna waa xaafada caan ka ahay xaafaddaasna waa xaafad yaraanteedaan kusoo koray lagama yaaban aniga dil inaan ku geysto iyo waxyaabo la mida taliya aamin wax dila ani aan geysta ma lahan midaas ayaana run iga ah kulle wax kale ima dhin ani aan kuu sheego ninkii laaya hadda isdifaac ayuu wadaa laakiinse waxyaalahaas anaga kama yeeleyna dembigiisa wuu cad yahay taliya aniga waxaan kuu sheegay keliya ayaan runa hadalkaygana qaado waayo aniga wax dembi ma geysan anigii aamin geem iyo waxaas ayaan iska cayaaraa kiiskaana wax raada kuma lihi taliya hadalka aan kuu sheega ayaa iga dhabaha codkaygana kor ayaan kuuga qaadayaa maahi qof gambanaayo sida aan kuu sheegana waa wax sax ah aniga wax caddayn kale maad igu haysataa ii sheega taliya واو إنه جبي عادي ما هي خطر واحد أوكي ما أنت عبيتان كانوا كروح سنة أنا بيبي جيب في عنا ما تصنت لكيس أنا كمل يا مركان شقين ما يا أنا مركا إلي جوت عبيتان هذا عبيست وكيه ليسا ما أنت هذا أنو ريساي يقدر فرها واي والنعبة يعني سداس maxaa dhacayna mar walba aan ku soo dhawaado sidaan ayaa ilaadaa waxa iga dhigtaa qof xuduudkiisa gudbayo kale laakiin shaqadooda ka soo baxdaadii waad mahadsan tahay aan ku raaxaysa cabitaanka waad mahadsan tahay jees adaa mudan runtii marka dambe quruxdaada way sii siyaadaysaa innaba caadi ma tihid marka aniga xataa way soo jiidataa waa mahadsan tahay adaa mudan mid ma ogtahayna ani adiga markaan wada shaqaynan shaqadaada aadaan u ixtiraamaa maxaa ka khaldan adigna isbedel ayaa kugu yimid ma garanay aniga nooc kala noqday xoogaa may waa iska caadi xoogaa saaka xumaan cun marka sharaabkana igu hubay cabitaanka cabhe energy ku siinaya
xoogaa caadi mihi tinta inay kuleel kugu haysa laga yaabo dib iskaga bixi marka igida farhaaga sida sideen ku sii daaya iga fogo waan ku bariyaa sideen kaa fogaana gurigayga ayaan joogaa aniga soo mogid maxaa kaa khaldan leh maxaa dhacay adigoo xafiiska jooga misena waad wareeraysaa maxaa dhacay sidee wax u jira yaa arrinaa jirtaya u kaadi bal sug sug u kaadi run ahaanti waa qurux badanta markaad jiiftid ha saaxib waan ku maqlaa innaba qofta ay soo dirta caadi maahan saaxib waa qof caadi ahna kala kacsan intaan naaga arkay qoftaan qof lamida maan arag waan kuu soo diraa sawiraan tayada kale kaaga soo qaado waa kuu soo diray ma aragtay sawirka si fiican u fiiri kadib waxay tahay adigaa ka faalloon doono adig qof an u soo dhiibo alaabta waa ii keeni kartaa wax walboo diyaar wada shaqaynteenna aadaan ugu faraxsanahay waa runtaa saaxib boobi waa la socotaa shaqadeeda inay fududaha aniga okay jooskaaga qaada saaxib waan soo socdaa waa waree nasiibkan gabati maanta hay quruxleeda ma daalan tahayna ya yaatiin idinka maxaana rabtaan waa maxay waxaan waa taqaanaa ma gabdhaha adiga kuu shaqeynaya may waxba waa fahmi laha aniga idhegaysa ma gabdhaha adiga kuu shaqeynaya aqoon weysay waa sax aniga naagaha inaan ka helo laakiin naagaha ma aqaan aniga nacas waqtigaa dhima lehed ayaa la gaaray iga jooji waqtiga adiga xanuunka dareemi laheedaa la taagay maxaa yeele gabdhaha xanuun dheexa waad u geysata adiga nacasyo lacag inaan rabto waan dareemayaa lacag intaa doonto waa ku siinaya nin lacag le ayaan ahay marka iska isii daa waa ku baryaa isii daaya lacagta aa sheegaysa dhibaatada hadda ku jirta kaama saarayso ii sheeg gabdhahaas inaa xoogto weliba adiga aad qayaantay ninkaas sidan wax kuma sheegayo waa inaan dilnaa aniga wax waan sameeyey waa runtaa waan sameeyey dhegayso waa maxay baasweerka warsheegayaan ku dhay 69 waay waa nin aad u xun ma xasuusataa waa biki haddana waa kaalsi alsebet sandi suusi waa ayadana waa xoogay xafiiskan ugu yeeray anaan shaqo siiyey waan ka faa'iidaystay cabitaanka ayaan wax ugu dar kaniini wax walba waa idiin sheega hadda cafiya waa idin baryaa ani garan u baahananiyo tacbaanah waa ii jeedaa caawi garab waa lagu siinaya laakiin mataqaana garabka lagu siinaya kow ayaa lagaa siinaa laguma dhaafayo maanta gacanteena ayaa ku jirtaa waa ku baryaa hay dhibaateen oo keliya hay dhibaateenina mahadsanid waad waalan tahay kelmad danba afkaaga hadday ka soo baxay intaa may kelmad kama soo baxayso waan ku dhammaynayaa ku talagal kow ayaan kaa siinayaa sawirka askarta u dir waan ka xumahay wax walba hadda way muuqdaan ma qarsoona maxaad rabtaa inaad ii sheegto
وهذا واحد لين حالة عادي ما دكتور كراي ازدجي وانكو بريا ازدجي معنى هاد ما حد قبنيسين نقطع دقمو ذاتين محندها ودقمو war orda meesha isaga taga marka hore eeg laakiin ina qaatayn doonaya midda danteeda waa qaadan kartaa 10 maalmood ayaad haysan kartaa warqadan hadirtan ay saxiix ku dhaqso saaxiib ee maxaad sugaysaa hadirtan 10 maalin kaliya shaqadeena sidaas ah اوكي هدي ايضا كيف تذكرن يقرا النقو مدس ما سمين كرو لعك دبل نديبن يعني انت اسقاضه وان لا تغيا وريا ما حد دونيسا انا ادي ترانو ما حسوتانا يا تاديga aniga waxaan ahay ninka trigger ahaa oo wax baarayay meesha ku socotid ma taqaanaa marka ها وانا قانا ماشي انا صعد وليبنا باسنا يان وتا قفين راسنيا baashan sida loo isticmaalo maad garanay marka ها وانا قانا aniga sida loo isticmaalo an outside course, is that an notion? I don't care. waan ku faraxsanahay inaan cabitaan nila cabo akhyaarta waan soo laabanayaa hala baashaalo I'm not good for more than half a round. He's gonna be dead. No, what could kill me? I can't kill me. But do go back. Go back and get clean. It's a good round. meesha aa ku dhimo lahayd ayaad maanta imaatay xafladda gebi ahaanna waad naga qastay kuma dhaafaya ka wayaan kaa siinayaa qayladaada waa saa'id halkan waxaad u timaadeen annaga soo maaha inaad nala cayaarto meeshaad ku dhiminaysid ma taqaanid doqonyo xunkaa kumaa tahay adiga doqomayo xaaskaygaa dishan familkaygana waad baabiiseen
oo hadda ayaan ku fahmay waxaad ka hadlaysaa naagta gaariga wadaya cunugta yareed soo maahan doqon ayaa tahay adiga ayaa doqon waad af dheertaa adiga wadda qaldan ayay soo galeen anigana waa u dhameeyey doqon ayaa tahay cunugtir waan dilla aniga laakiin ilmaha ma dila aniga baawur ayay soo qaateen wadda qaldanna way soo galeen laakiin aniga aagayga ayay ugu imaadeen doqon ayaa tahay maku dhaafaya xaaskayga iyo gabadhayda ayaa disheen waan ku dilayaa kuma dhaafayo maanta ayaan lasha kugu dambaysa adiga hubkiina waa inaa hoos u dhigtaan gacmihiina kor u taaga dhaqsada weliba aniga kuma jiro adiga maxaad u walwalsan tahayna waxba iguma dhicin laakiin ninkan ayaan aqoon u leeyahay adiga xadgudub ayaad samaysay dad inaa u tagtaa weliba soo garaacday ka waran nasiib ayaad leedahay hadda wayba nool yihiin bistoolo sharci darana waa wadatay sharciga sidan ma ogola annagana ma aha sidan inaan kugu sii deyno indhahaaga waxaan ka dareemayaa qof aargasi u socda marka deganaan muuja ayaan ku dhihi lahay looma baahna inaad wax samayso inaan wax sameeyo waan ku qasbanaya aniga taliyaha waxa uu leeyahay ninkani xanaaqiisa dhibaatooyin badan ayay u horseedi kartaa marka adiga isxakamay ma igu raacsan tahay haddeertan in dembi dusha laga saari karo maxaa yeelay baskoolada adiga lagugu arkay laakiin weli dabaqabasho ayay leedahay maxaad ku hadlaysaa fiiri xaaladdan ku suganaya aniga maxaad ka wadaana aniga waxaan doonaya in bannaanka laga saaro ma dhici karto taliya inaad sidaa u hadasho waa laga fiican yahay aniga cadaalad ma helin inaad idhibsataanna waa laga fiican yahay arrinta ma taagno weerarka aad qaaday iyo caddeemaha adiga aad haysid xabsi way gelayaan balse waxay qaadanaysaa waqti aad u dheer dhegayso haddaan sidan maxkamadda aan ku aadno waxay nagu qaadanaysaa sanado aad u badan waxna kama faa'iidi doonno xukunkana wuu sii badan doonaa heshiiska waa inaad aqbashaa ayaa khiyaarta nin cusub ayaa nii keenay bilaa edab iyo isku badnaawe dhinacanka baxwari aamusa edab milidiine hay saaxib wax yar mu baahan tahayna soo fariiso waxa ku farxad ayaan ku siinayaa may aniga inagu filan ma haystaa naga daaniyo inaa farxada laga yaabaa bal fikir soo fadhiisan adeer meeshan ninkaasna ha fiirin waa nin aad iyo aad u xun ma fiicna waa dhaqan xun yahay meeshan maxaa ka dhacayaan waan la yaabanaaya
والله موجته وحكون رغمايان صفي نقدر عيارته وسخ جوا رقمه وكون استبد مرضى بهاي تهابنن عادي ما يا runtii waad ku qaldaneed imaashaha halkan timid aniga ay saaxib migu caawinaysaa kuwan dibadda inaan saaran doonayaa maxaa diidayana okay waayahay jays soo istaag bilaa edbiinatiina socda soo socda waa wax dhaqan leen ka war soqaynta socuriya dhaqaaq ka baxa meesha aad ayaad mahadsantahay sida sharafta leh aad nooga saartay nimankan thank you waa lisku leeyahay هاي الدغمية حسوستاني رونها انت ننحن ايات هذه واستاهل سوماه tabartaadoo dhan waa intaas waxaad taraysid ma lahan eberka ayaa tahay lugaha xataa waa ku istaagi lahaa soo ma jeed u kaadi yaa taadii way kana عيارتين سيدة بديرات عيارتين صومها أنا جنوا بسوق بجبيبة ولا وردي كون ماشى كوت وحي فايدة اللي هين ملهانه نغاجية بلا أدب إن صاحب سيستك أنا جاي أقرب كسينا إن أذيك محاكو قد عنا حالة سوء كمان نباتذ كويسة تمحتها هي شيء أنا وحرة إن أذيك أن كعابية مركب نبكاga ii sheegba adigoo raaliya adiga magacaana ii sheeg aniga haankaa la yidhahaa ana noolana ildhaha tegar waa ku maasanta maadaamaad caawisay dhibaato ma laha halkan maxaa ku keenay aniga abukaata ayaan ahay abukaataana u baahanahay aniga ma aqaan meesha sidaan uga bixi lahaa dhib ma laha aniga ayaa garab ku siinaya run ahaantii aniga familkayga dhibaatooyin ayaa loo geystay xaaskayga waa la dilay gabadhayda yareen waa la dilay dhibaatada ka fogooyaa hawlwelin adiga daawooyinkan ku caafimaadaysaa waxaad tahay nin geesi oo meeshan ku soo biiray run ahaantii dagaalkana aad iyo aad ayaad ugu fiican tahay laakiin aniga dagaalkayga waxaase ma jeceli dhibaato ayaa la ii geystay sida darteed ayaan meeshan u imaaday dagaal iyo waxaasna kuma fikiraynin aniga adiga waxaad leedahay dagaal ma rabo laakiin meeshan sharcigeeda waa in marqal iska cabaa dagaal ayaa yaallo haddii aad dagaalanto horumar badan ayaad gaaraysaa laakiin haddii aad dagaalami weyso adiga ayaa maraqa lagaa cabaya waa lagu dilayaa macnaheeda waa runtaada aniga meeshan qof kama aqana laakiin inaan baxo ayaan doonayaa waad baxaysaa laakiin keligaa ma bixi kartid waxaad u baahan tahay in aad guruub ku biirto markaas dadku caawiye ayaad helaysaa sida hadda ninka ku caawiyo kale waad arkaysa u dagaalamayay waa runtaada haanka waan arkay qofna waan dooranayaa aan la saaxiibo shaqo wacan ayaan ku leeyahay magacaygu waa jax run ahaantii aniga waan aamini karaa dadka waardiyayaasha ah waardiyayaasha waad aaminaysaa laakiin gaangiistarrada inaad aaminto ma rabtid nin caqli badan ayaad ila eg tahay waxaan kuu rajaynayaa waqti fiican inaad qaadato meeshaan si qurux badan aad uga baxdo igaraal mid ayaan ka hilmaamay
aniga magacayga waa Reegar Nolan. run ahaantii aniga xuduudida waan soo dhaafay meeshana ma aqaan waxaan ka sameeyaa aniga. waan ku fahmi karaa laakiin ma ogtahay hankee in uu ku badbaadiyey hankii uu yahayna ii sheeg. aniga ayaa kuu sheegaya hankeen waxa uu garaacaa dadka cawaanta ah ee meeshan ku xidhan. waa nin geesi ah waxyaabaha qaarna inuu qaato lagama yaabo. laakiin aniga sideen ku bartaa dagaal? aniga middaas hadda kaagama jawaabi karo laakiin hank waa nin askari ah tababar badanna hore ayuu u soo bixiyey waa laysku hubaa. ninkaas muhiim ayuu ii yahay. igu kalsoonow waa ninka keliya adiga garab ku siin kara. هانكاي كوف كلا عبي سابي صاحب سيدي وحو جرا صاحب حوغا انيغا وان اسكا مشغول سنه ما انتو دانيغا وان كسو وعي تليفون كان وا ايغا قبن ويسي ما اخان وخي كا خالدان اديغا وان كولا يابانahay iyada taqaano ninkan waxa laga yaabaa meelaha inuu dalxiis u jiro oo jooginbo macquul hadda maxaa haysaa ii sheegbo aniga wax kale ma hayo ninkan ayaa maanta xabsiga kula soo kulmay dhibaato badan way haysataa si fiican u fiiri waxa laga yaabaa dadka xabsiga ku jiro dhan inay jecel yihiin inay banaanku soo maya sidaas maaha ninkan dhibaato badan ayaa ka muuqatay familkiisna waa la baabiyay marka waan ku qasbanaa inaan garab siino sida u aragtiina inaan garab siino way ma xabsiga galiya asiga muxuu ka qabanaya saaxib maxay tahay adiga waxa iska yeelaysa wax walbana waa taqaanaa maxaa qaanaaniga sida askartoo kale inay isku kalsoonaadaan ayaa la rabaa hadda warkasta iska daysiin qorshe aan ninkaas ku badbaadin waa inaa keentiin waa runta waa inaan qorshe keenaa annaga weliba qorshe aad u wanaagsan akhbaar wanaagsan ayaan kuu wadaa soo kac markaa hani ayaa kiiskaaga la wareegay waxaa kuu wanaagsan adiga in reerkaaga la baabiye aa xasuusatid meeshaan dadka ku nool waa cawaan iska dhicin ayay wax ku leeyihiin adigana waxaa lagaaga baahan yahay in aad tababaratid xanaaqa gudahaaga ku jirana bannaanka aa u soo saartid isku day marka meeshan sidaad ugu bixi lahayd oo familkaaga ugu argudi lahayd beel ayaa tahay maanta laga bilaabo dadkaaga ayaa dhinac ka raacanaysaa hee akhrinta buugga ma dhammaysatayna aniga horaan kuugu sheegay qofka keliya garab ku siin karaa adiga yahaan badin ahaan layn aniga waan dhiman lahaa mar hore waxaad tihiin dad saaxiibbaa xaqiiqdii waad i caawiseen waadna ku mahadsantihiin middaas adiga kuma qurux badnid xabsigan inaad ku sii jirto ee waxaad ku qurux badan tahay xabsigan bannaanka inaad uga baxdo qaabkaad uga bixileed falkeeda inaad gashaa naftaadana ku kalsoonow waad mahadsan tahay mar kale ayaan is arki doonnaa naga taqdoqoyo waxa barabtaa miya banaanka inaad u baxdo afukaati iyo waxyaabaa loo jooga ayaa isku aadisanaysa isdeji waan ku baraya aniga dagaal mar isdeji miyaa tirina iska dhicno aw awoodda ku faanaysa soo soco
loolan haddaad i maqlaysa halkaan imaawo waan ku maqlaa saaxiib aniga adiga waxaa rabtaa goodhow inaad meeshaas ka soo baxdid intaada ka soo bixinna god ha qodanin ayaan ku dhihi lahaa aniga kolley nafsadayda ayaan difaacayaa sax aniga waan ogahay waxaad u baahan tahay deganaan muuji meeshan waad ka bixi doontaa igu kalsoonaaw run ahaanta aniga meesha nidaamkeeda ma aqaano laakiin idaadad waxay baraysid diyaar ayaanu ahay adiga meesha inaan ka baxd maa rabtaana aniga meeshan inaan ka baxo ayaan doonaya welibana si sharciyaysa inaan nooga baxo aniga maraykanka waan ku soo koray laakiin wax cadaalada maanan helin maxay ku dhacday midaas aniga xaaskayga ayaa la dilay culugtayda yareed ayaa la dilay meeshan inaan aniga kusii jiro maxaq baan u leeyahay ii sheega sabtee lagu jiraa meeshan aniga maxaan dembiyo galay america ayaan ku noolahay waa kana waxaad ii qabateen malan askarta waxa maysan ii qaban cadaaladna maanan helin dhibaatada aniga dhaxlo ayaan ka galay isdeji adiga aniga igu kalsoonaaw aqligayga iyo aqoonteyda ayaan kaashanaya kadibna meeshan aniga ayaa kaa saaraya 2 bilood jaanisisi 2 bilood ayaan wax walbana ku xalinayaa aniga meeshan haddii aan ka baxo bannaanka yaa iga jiro maya sidaasaa dhihin bannaanka adiga nafsadaada ayaa xurnimo ugu noolaanaysaa kaam xaaladiisa intay ku dambeysay kaam waa nin xun wuxuu dhibaato u geystay gabar jirta 17 sano ayuu garaac anagana ribood ayaan ka qornay arrintaasna adiga waa la socotaa annagana diyaar waxaan u nahay shacabka qofka dhibaato u geysanayo inaan ka qabna soo ma fahminna waan ku fahmay okay marka kale aan kulmayn waxaan rabaa qof awood leh inaad iska dhigtid igu kalsoonaaw meeshaana aniga ayaa kaa saaraya waxaan kaaga baahanay nin nadiif inaad noqotid anigana waxaa igu ballan cadaaladda in aan ku horgeeyo xaqaaga kuu soo dhiciyo waa iga codsi adiga le nadiif noqo waan noqonayaa qof nadiif ah waayahay is aragti dambe oo xiisa leh okay waayahay doctor koray 12 bilood baa xabsi ku jirtay maantana maxkamadda lagu hor keenay waxaad qabtanayna dibadda u soo bixisaad noo sheegtaan doonayna anagu doctor koray inuu hadlo ma raba asiga laakiin aniga wax badan ayaan ka ogahay maxaa yeelay waardiyaha meesha ayaan ahay asaga dadka inuu la hadlo ma jecel laakiin wuu maqlayaa ninkan xabsiga ayuu ku xirnaa keligiisna wuu ahay xabsigana hadda dhibaato badan ayaa ku haysato waad ku saxan tahay laakiin waxaad ogaataa mar walba in aan ninkan difaacayno garabkiisana aan taagannahay inagu wax walba waxaa noo soo gudbiyey haan waa runtaada marka waxaad ku fikiraysaa waxa weeye inaad xabsiga dibadda uga baxdaba haan waxaan kaa doonay ninkan haddaad wax warbixino ka haysa waa inaad noo soo gudbisaa waayahay aniga ayaa kuu soo gudbinaya horta ninkan waa nin aad iyo aad u wanaagsan dhibaatada haysataa waxay tahay xaaskiisa ayaa la dilay iyo cunugtiisa yareed waa macalin jaamacad dhigo oo arday wax baro asagana hadda wuxuu rabaa cadaaladda in uu helo cadaalad hadduu helana wuxuu dib ugu laabanayaa ardada asaga oo jaamacadda wax ugu dhigaya marka ninkan cadaalad ayuu u baahanya marka cadaaladda hala siiya doctor koray fursad labaad ayaa dib lagu siinayaa xabsigana maanta waa lagaa sii deynayaa laakiin waxaan kaa rabaa qallaad dambe iyo arbushaad dambe inaada galin maantana laga bilaabo xorriyad ayaa leedahay xorriyaddaada waad haysataa horta sidaad sheegaysaan aniga khalad waan galay laakiin khaladkaan galay waa mid aniga naftaydaan ku badbaadinaya laakiin sharciga inaan ku xadgudbo ma rabo waxaan doonayaa sharciga in aan dhowro oo aan ilaaliyo meeshan haddii aan ka baxayna waxaan rabaa fasax idinkaad siiseen inaan ooga baxo haa wixii horaan sameyn halaga raali noqdo kalaabkan ma taqaanaana maya
kalaabkan aniga asxaabteeda ayaa warbixinada ku kala qaadana waana ku caweynaa weliba cabitaan ayaan ku cabnaa adiga ma nagu soo biiraysaana anaga may waad mahadsan tahay maadaama ay soo dhaweyseen thank you anaga waxaan rabnaa inaan adiga aan garab ku siino haddana arrinkiis ayaan ku wada kulannay wax walbana waan xalinaynaa صاحب اسمه دهن ماشان اياد كو اركيساي لما فلان اياد iga dhigtee ninkan odiga u jeeda Daniel ayaa la asxaabta ayuu kamid yahay oo Daniel ku salaamay waan ka qaaday gabadhan Amanda ayaa la iyana asxaabta ayuu kamid tahay waan ku salaamay san aragtida Amanda naga dhaafay marka asxaabta inaan sii taagnana ma cabitaan ayaan caweynaa aan fadhiisana caweyno labadan in adiga iyo meesha ka soo saaray waasanta laakiin adiga say ku garatay labadooda waa askar fiican anigana askariid ayaan ahay gabadhan waa askariid anaga ayaan la shaqeysaa waan fahmay waa runtiis anagu dhan asxaab ayaan nahay waa runtiisa shaq fadhiisinta intaan lagu sameyn xataa asxaab ayaan ahayn waxaan la shaqay jiray nin daroogada ka ganacsado waa runtiis ninkaas daroogada iyo ka ganacsan jiray ninkaas daroogo kaliya kama ganacsanaynin dilkan uu ka ganacsan jiray dadkana kaliyaha iyo beerka ayuu kala bixi jiray waa runtiis arrintaasna markaas faraha way ka bixi rabtay oo sheekada masalan ay u dhacday magaciisana Coachiel ayaa la dhihi jiray hadda waxaas aan ka gudubno ninkan saaxiibkeena dhibaato badan ayuu soo maray xabsina muddo badan ayuu ku jiray waa runtiisa dadkan xabsiga si deganaan haday ugu dhaqmi lahaayeen waa loo doodi lahaa si deganaan way ku soo bixi lahaayeen laakiin midaas ma sameynaayo saaxiibkaygu wuxuu ku hadlayo waa runtiisa dadkaas looma doodi karo waa runta dadkaas looma doodi karo maxaa yeelay waa dad tuugana faa'iido ma lahan aniga uma maleynayo dadkaas inay saas iska bedeli doonaan sidood ayay ku soconayaan runaantii aniga waxaan la yaabanay mataqaanaa qaabkaad u doodaysanayaan keelay adigaba caadi ma tihid anagana hadda waxaan diyaar u nahay in adiga aan garab ku siino diyaar ayaan nahay waaye waaban keelay doodiinan ka waran waad may caawin kartaan adiga foodo socota ayaa tahay haruntaani foodistaanayo meeshan daroogada laga ganacsanayo way sii ziyaadaysaa dadka la dilayana way sii kordhayaan wax badan in laga qabto ayay u baahan tahay arrintan haddaan wax laga qaban annaga ayayna saameynaysaa annaga keliya maanay shacabka hataa way saameynaysaa xataa albaabada furan ayay ka tagaan tuugada mayna xirin waa runteeda dadka muwaadiniintana cabsi darteeda guryahooda ayay ku jiraan laakiin waxaa ogaataa albaabka intay xiranayaanba inayba waxba iska celin karin oo weligooda lagu kortumanayo waxaa la rabaa qofka inuu geesino muujiyo dadkaas ka hortago
haddana dadkaas laga hortagin masaakiinta way baaba'ayaan hadda ka hor waad xasuusteen gabadha yareed iyo familkeeda sida ay u galeen annagana markaan looma baahno inaan maalaayacni aan ka hadalno waa inaan taargetkeena aan ka dhigana dadka sidaan gacanta ugu dhigi lahayn maxay inta ka samaynayaan indhahaaga ayaad ku arkaysaa waxay isdhaafsanayaan maxaa ka wadaa maxay tahay waa tuugadii in aan gacanta ku dhignana waan ku qasbannahay waxay isdhaafsanooyiin hadda waa howlgelaynayaa maxaa meeshan ka socda istaag waryaa nacas kala taga ya noorsi maxaa meesha ku haysaana ana maxaa leey maxaa meeshan ka dhacay isdajaadiga aye wax dhaqdhaqaaqayaan la muujinin soo bixi alaabta adiga ayaan kula hadlaynaa maxaa noo dhegaysanaysaana alaabta soo saar hana fiirin magacaa jenkis ayaa lay dhahaa war jenkis iska dhaafe ee magacaaga saxda ma sheegaysaa haa ama maya aniga inaad qasabtaan lama baahna kaliya waa inaad ila hadashaan oo kaliya ma fahateen qasab iska dhaafe kalxantaan kaa jibinaynaa soo saaraan ku dhabaasho no ha ii dilina tartiib waxaan wad arkaysaan aye soo saar dhaqso waay annaga waxaan wax nagu cusub maaha calaamadanna wax badan ayaan arkayna waxyaabaha ku qarsoon ma noo sheegaysaa haa ama maya baashan aniga ayaa mas-uulka ah war mas-uul ka noqo haddaa rabteed runta inaad ka hadashid ayaa kuu wanaagsan haddaad runta ka hadlinna kow ayaan kaa siinayaa run ahaantii baashan yar atiita la dhahayo ayaa iga dalbaday marka gaari ayaan ugu keeni jiray hadda laakiin uu iga soo dahay saa darteed idinka ayaa i qabta qof kale nagu dhiibi rabay dhibaato kale ma lahan arrintan xal ayay leedahay xalkeedana lafajibis runta iska sheeg dantaada ayaa ku jirta cawaad wax ma kuu taraya aniga waddada labaad ayaan kuugu arkay adigana waxaa rabtaa waxyaaba badan inaad naga qarisid marka hadal ha aamusnaanin haddii kale lugta kale ayaan kaa jebinayaa halo ya waa arrin fiican waan ka helay amarkaagana waa fulinaynaa waan ka xumahay waxay doonaan ayay samaynayaan ka waran naga taga dheh taga waxaatiin mala maxaa u malaynaysaana waa aamini laahay waa inaan kor ka ilaalinaa maxaa ku helana idinka waxaad tihiin malahan war qofka ratin ayaad garaacsan qofka ratan ayaad xabad ku dhufanaysaan maxaad dimacsantiin ii sheega waa idin fahmi laah tuugada inaad sidaan la yeelo mahane si kale ma looga hortegi karo ka xuma bro si fiican ii dhegayso adiga lama rabo inaad doqonnimo aad ku dhaqanto waxaa loo baahan yahay aniga inaa ii aamintid dadkaas waa cawaantuna sidoodana asxaan looma sameeyo gabadhaada iyo xaaskaaga dadka dila waaye haddana adiga waxaad jecesha soomaa indhaha in laga fiirsado waxba aan laga qaban aniga wax waan ka qabanayaa arrintaas way ka duwan tahay waxba kama duwno dadka sharciga wax oo ka qabanaya haba yaraatee mal haddaan sidaan loo gelin magaalada ayay ku faafayaan dhibaatooyin badanna way geysanayaan haddaana sidaan loo gelin adiga ayay kugu imaanaysaa maalintay adiga kugu imaadana maxaad samaynaysaa ii sheeg xaaskaaga iyo cunugtaadana waa dadka dilay indhaha maa ka fiirsanaysaana warniyahow damiir haddaa leedahay danqa ayaan ku dhihi lahay familkaaga sida ugu aarleed waa inaad falkeeda aa gashaa aniga arrintan kuma jiri mana geli karo ha ku jirin haddaa rabtid laakiin adiga waad waalan tahay waadna ogtay sama waalidaada waan waalanahay dadkaas dartoodana inaan u waasho diyaar ayaan u ahay
adiga hore waxaad ii dhahday nin foodista ayaan ahay laakiin haddaa sidan aa ku sii socotid foodadaada meesha ayay ku dhammaanaysaa waryaa nin rag ayaa tahay familkaaga ayaa la baabeeyey waxaan ku dhihi lahay wax isku tar adiga ma kula tahay ninkan inuu wax samaynayo waa hubaal wax buu samaynayaa annaga lee og xaaladda ka waran sidee tahay fadhiiso kafe iyo qaxwo maxaa cabaysaana dangiyo waa mahadsantahay waxaa maqli ninka hangilaahay in adiga oo garab uu ku siinayo laakiin aniga waxaa ila wanaagsan adiga meeshaan in aad iskaaga tagtid magaalooyinku way badan yihiin meel kale inaad iska aadid ayaa wanaagsan maxaad ka wadaa si fiican ii dhegayso adiga waxaa kuu wanaagsan dadka dhibaatadan kuu geystay inaad baaritaan ku samaysid yacni anaa kuu sheegaya faahfaahintan ku siinayo waxay tahay dadka dhibaatadan kuu geystay magaaladan ayay dhinac ka joogaan haddaada baadi goobinna adiga ayay dhibaato kuu tahay ilaa familkaaga ayaa la baabi'iyey yacni aniga kuma fahmin weli maxaad ka wadaa sideen wax kugu sharxaahe wax aad fahmaysa haba yaraatee ma lahane familkaaga dadka dhibaateeyey magaaladan ayay kula joogaan haddaada adiga baadi goobin yaa kuu baadi goobaayana aniga waxaan ku dhihi lahay wax qabso daqiiqadii ugu dambeysay ayaa waxaa la diray dad Amerikaan ah sanadkii la soo dhaafayna waxaa la baabi'iyay 29,000 oo qofood dadka daroogada ka ganacsadana wadooyinka ayay ku iibinayaan oo weliba ay ku ganacsanayaan ilaa haddana cid wax ka qabatay haba yaraatee ma jirto cid ka hadashayna lama arag wow haye haye sidee tahayna waan fiicanahay xogaa cabitaan ma cabaysaa may waan wanaagsan cabitaan ma rabi maanta waa soo dheeraatee adiga waxaa jiray waxyaabo aniga adiga qariso aadan ii sheegin oo xaqiiqada ku salaysan aniga abukaataaga ayaan ahay wax walba oo xaqiiqda ku saabsanna inaan bannaanka soo dhigo waaba shaqadeyda ma fahantee hadda adiga maxaa iska kaa bedelan ii sheeg aniga meeshan waxaan u imaaday waan dareemi karaa waxaad u imaaday go'aankaaga ayaa isbedelay soomaana waxaad rabtaa inaad aarsatid waayahay go'aankaaga ugu dambeeyey ii sheeg aan ogaaday aniga go'aan ayaan gaaray waxaan rabaa fikirkayga kaliya inaan ka hadlo khayaarkaygana waan leeyahay waan ku fahmay fikirkaaga ayaa bedeshay soomaa ninkan degdega ku imaaday waa laga shaqeeyey waxaas hubkan ku cajibiyey waa waray hub markii ugu horeysaan qabto moogtahay okay waan ka helay dooqaa kala bax meeshan way qurux badan tahay laakiin marmarka qaar waxaa ogaataa in kowl iskaaga siinayo iska ilaali
umaari miya adiga haa waa aniga si sharci daraan miyaad rabtaa inaad igu dishaan haddaba taas ma suurtagelayso ogow warka badan inaad iska dhaaftid daroogada soo bixi waa maxay daroogada waxaan ku dhahay daroogada soo bixi soco dhegayso aniga ma aqaan waxaad tihiin laakiin si sharcigan ad igula dhaqantaan isku day idinka ma waxaad moodaan in aad i cabsi gelin kartaan aniga taasi mid dhici karta ma ahan mana idinka ogolaanayo middaas idinkoo kale waana idin aqaanaa ujeeddada aad u socotaan ama danta aad leedihiinba war aniga ujeeddo khaasa kaamilihi laakiin runtii inaan ogaado ayaan rabaa meeshan waxaa ku haysiin ii sheeg gacmaha ka jibi dhaqso samee dhaqso maxay ka fiirinaysaa maxaa dhacayo runta sheeg runta sheeg waad ku khasbantahay inaad runta sheegtid haddaan maanta aan ku dhaafo waad arki doontaa runta sheeg hadda maxaa dhacay walaal isdejiya nimankan waa inaan wax ku samaynaa isla hadda weliba muxuu naga soo fiirinaya dhaqso garaafee aan ku dhaha garaac aniga waxaa dabacsta waa aqaanaa kinkiis ayaana idin soo diray war orday waxaa tidhi qaata mar una iga taga ayaada idhi waxaad u imaatan waa lacag wayna tala lacag inta gayar ka haya qaata hadirtan orday hadda qaata baha war adiga kaale maxaa dhada lacag waxaa rabtiin qaata ah annagana lushaqaatayaal maa noo malayseen anagoo doqon noo maleeya ka waran haya dhaqso wejiga ka bedela waa maxay saan maxaa ka wadaana baabuurta isticmaala wada qaata hadda nafteeduna in nabadgeliya alaabta sheegisana baabuurka ku jira hadirtaan ka fiirsada hadalka arabna waa halahaas waa nooca benjooga la yidhaahdo ogaatana middan waaye balaasa waan helnay waa inaad noo soo dirtaa tiimka kaleeto waayahay waa eeyo doqoma ah kuwaan sidaan uguma hareyno haa sidaan ugu harimayno kow ayaan ka siinaynaa walaal ninkan ku dhahay si awood ku dheehantaan u garaacay waan ka dhergan ku dhaacay maahan waa garaacay saaxiib dareenkaas siduu ahayna dareenkayga beelo ahana waan ka helay baan naga joojiya khiyaarta maxaa samaynaysanna annaga daroogada magaalada ayaan ka soo fogeynaa kadibna waan gubnaa waxa keliya magaalada ku ceshana waa lacagta sidii robin hood soo ma ahana adini oo caadi batay saaxiib ninkaas hal qalbi ayuu lahaa maskaxdiisa si fiican ayuu u shaqaynaysay nin khatar u ahaa caadi ahaan balaas ma itig babla way xireen waa runta waa la xiray anaga la-aanteennana shaqo ma qaban karaan magaaladan way qurux badan tahay soo maahan laakiin sida hore uma qurxoona magaaladan hadda sidee noqotayna waa baaba waxyaabo badan ayaa ka dhaco waan aqaana aniga meeshan waxaad ka qabato xitaa aniga waxaan qabtaa doon ogahay aniga famil ayaan lahaa iyo xaas aad iyo aad u qurux badan waa kanaa fiirisa warkeeda waana jeclahay aad ayay qurux badan tahay aari nin lagu magacaabo ayaa wax walba iga qaatay dacwo ayaan ka gudbiyey dacwada markaan ka gudbiyey kadibna nimankiisa ayaa gurigeyga weerar ku qaadeen aniga meeshaas ma joogin
xaaskayga ayaa joogtay wayna iga wateen way dirjileen kadibna way kubsadeen 2 sano ayaan la ahay kadibna waxaan helay iyadoo bahdilan dhibaato ayay ii geysteen dadkaas dhibaatadii ii geysteenna mida iloogi doonaataa ma aha waan ka xumahay dhib ma laha nimankaas aan kuu sheegaan ilaa ay haddana magaaladan ayay joogaan hangaran ahaantii waa arrin xanmidaan dhib ma laha aniga hadda wax famil aan leeyahay ma laha hadda waxay tahay banaanka ayaan kuu soo saareen waan ogahay mid ah adiga nin fiican ayaa tahay sidoo kale saaxiib adigaba nin fiican ayaa tahay ya islaali maxaa ka wadaan adiga yidhigeeso dadka masajada ii soo diraaya hal gabaraan ku leeyahay soo ma ogidne mideeda kale aniga meesha sigaar ayaan ka helay ayagoo dhanna sigaarka waa isla wada cawaayeen meel haddii dil lagu geystana raadraac ayay leedahay waa runtaa haa naagtas xunta hadeertaan si fudud ayaanba ku helnaba gacanta ayaan kusoo dhignay waad saxan tahay balasma mahadsanid brow noqolan aniga hadda waxaa ila joogo sir baaribaryaanka arrintan ina adiga kuu sheegayana asaga ma oga laakiin waxaan kuu sheegayaa waxyaaba adiga kugu saabsan in gacanta lagu dhigay hayaa khayaarta shaqo wacan ayaan in leeyahay waad ii fiicanta soo maahana adiga meeshan maxaad ka haysaana aniga hee maxaa dhacay yani waxaan koda ma soo heshay waan ku guda jiraa maxaad ka wadaa ii sheeg anaga ninkaas gurigiisa ayaan tagnay waxaan noola sheegay 2 bilood inuuna guriga imaanin 2 bilood ah laakiin warka ma rumaysatay adiga waan rumaystay ilaa aniga sidaas ayaa liigu sheegay soo maahana laakiin soomahan asxaabtiisa iyo guryaha dariska u aadi jiray inaad u baartaan annaga muhiimaddeena maaha albaab walba inaan garaacno sidaa annaga aan waxaan rabno aan ugu helno waa inaan ka fiirsanaa wax walba don't worry be happy isdeji wax walba anaga ayaa raadinay maxaan isdejiyaa doqomo ayaa tin ilaa hadda waxa soo qabateen habayraati ma jiro ninkaas magaalada ayuu iska wareegayaa waa ninkii xaaskayga iyo gabadheeda dilay idinka isdeji maxaan isdejiyaa ii sheeg isdeji ayaad leedahay waxa shaqaad qabanaysaan mal maalin walba ereyga noocana waad igu soo celcelisaa waxaad ii qabatayna ma lahan aniga waad idalisay anaga waxaan ku raajoodnaa dadkaas sidaan ku soo qaban lahayn marka anaga shaqadiina hanoo tilmaamay aniga idinkuma kalsoonaan karo ninka wuu baxsanaya ma fahantay intuusa baxsan waa inaan ka hortagaa adiga fudeedka jooji anaga sharciga ma ka hortegi karna adiga waa daalan tahay weliba dhibaato badan ayaa ku haysata marka waxaan ku dhihi lahaa guriga iska tag wax walba warbixinna aniga ayaa kuu soo gudbinaya iska naso waqtigaagana qaado waan ku baryaa ninka darteeda u soo hel okay aniga darteeda xaaladdiin waa okay soo maaha aad iyo aad nigu inuu macquul ku salaamaya noolan maxaan inta kasoo doontay waan ku salaamay sir barbaryan ayaa aniga soo wuxuu dhahay xog ayaan ku hayaa intaas kale nugu laakiin aan waxba ima sheegin ma heshay filimkani waxa lagu tarjumay adiga sidaada waxaa jeceshaa lama filaanka anigana way dhibaysaa mana jecel dadka igu soo laalaabto inaa maskaxdaad ka shaqaysiisid isku day meelaha aan joogana aa ka fogaatid agtaydana ha isku imaanin adiga wejigaaga ayaa idhibaya usoo hor istaagin mar kale adiga soo askariid ma heenna ammaanta soo ma hayn sax aniga askariid ma ihi ee shiishahaanad ayaan ahay wax xog ee aniga weli maana helin haddaa helnana waan kuu soo sheegaynaa marka adiga inaad soo noqotaa isku dayin ninka sirbaarahana waa nin wanaagsan waa nin iska daacad waan ku fahmay waa runtaada ee adiga isku day inaad haqaaga soo dhacsatid nin doqona ayaa tahay fimilkaaga ayaa la dhameeyey meelahan ayaad kusoo laalaabanaysaa wargees iska dhigoo soo dhacsa haqaaga meelahana kusoo noqonine ninka taajirka oo darogada ka ganacsada ayaan rabnaa inaan soo qabano laakiin ninkaas waa nin aqli badan see kusoo qabanayna haddana lama qaban karayo ila taha aniga waxaa ku hadlaysa adiga ma ka fiirsateen mise waa iska hadashaa maxaa ka khaldanna qof aan la qaban karin male ninkaasaan ku qaban lahayn waa inaan dadaalkeeda galnaa
haandi waa inaad raadnimadaada kaashataa adiga laakiin waa inaad isku kalsoonataa horta kalsoonida sideedaba aad ayay u fiicantaha laakiin aniga waxaan samaynayn loon liigar ma qaadanaya waxaas waa iska caadi laakiin askarta in lala shaqeeya ayay u baahan yihiin qof nool ayay raadinayaan laakiin ilama ahan inay helayaan arrintan waa sida xuduudda mexico kale magaaladan oo dhanna wasaq ayay ka dhigeen dadkan laakiin arrintan sidee ku hubta adiga miyla shaqaynaysaana amaada adiga bistoolad ayaad haysataa baasaboorna waa leedahay signaalkana waa lagu muujinaa ninkaas sida walba ay noqotay waxaan rabaa inaad gacanta aa kusoo dhigto shaqadaada waa inaad gudataa waddo alaal waddada rabtidna u mar هاي صاحب waxaan maqalnay maanta askarta inaa aadda adiga maxaa kala kulantayna ammaanta aniga wax walbaan u sheegay waan ognahay wax ma soo hesheen idinka si oo sharciga waafaqsan ma aha laakiin adiga waxaa rabtaa inaad gacmaha aa issaartid aa waxda aadan qaban taasna talo kuuma noqonaysa waxaan ku dhihi lahay wax un u sameey fadhigana ka kax ugu dambeyntii adiga ayaan kula jiraa loolan fadhi nooma yaalay soo dhaqaaji aniga iskale waan haystaa maxaa haysaana ii sheeg bal waraaq cadi waraaq buluug ayaan haysta aniga warniyo adiga u kaade degdegsiima duur ma dhasho aniga ayaa dheelaayo nagadaniyo ayada u sheeg ayadase ugu sheega aniga jooskaygaan ka dheelaa marke iyo dulqaada marka aniga wax badan ma haysta saaxiibow aniga jaamacadda ayaan aaday saaxiib warniyo jaamacadda aadaa leedahay haddii aad cashar fiican ka soo qaadanayn ma iska dhaafta jaamacadda wax badan ma dhiganaysa adiga baskooladana xashiishka korkiisa ayaa kor saaratay taasi shuruucdeena maahane soo dheel cayaarta aniga gabdhaha ma aqaano haddii aan runta kuu sheego mas-uuliyad haddaada qaadi karin anigaa sameeye waxba ha dhihin aniga ilaa hadeertaan waxaan sameey ma lahan wax yar xitaa ha ahaadaan turubkaaga soo fireeya lolan bistooladan qabso waxyaabo badan ayay kaa caawinaysaa caawan dadka waaweyn ayaa la shaqaynaysaa marka xaji baashaas bistooladan adigoo waxba arkin ha iska ridin yaa maskax oo keliya isticmaal meeshan maxaa ka dhacayana indhahaaga wax ku arag ninkan odayga ayaa noo casuuman caawo waan u jeedaa oo runtiisa qalad badan ayuu gal laakiin maanta fursad ayaan ku haysanaa askari baaran bajiyo ayaa warbixina soo siiyey ninkan saas darteed ayaan meesha ugu imaanay waa doqomo khiyaano badan waxaan jeclaan lahaa jangiis inuu joogo wax walba uu arki lahaa asaga meeshan hadduu joogi lahaa waxyaabo badan ayuuna la qaban lahaa maanta annaga waxaa noo wanaagsan waddo kale inaan helno oo dadkaas aan ku baadi goobno dhib mal asiga ayaa noo sheegay waa sax soomaan waxbaad noo sheegaysaa hadal hewriyaa hadal ayaan ku dhahay ninkan fursad ha hadle war hadal maala yacni ayaad haysayin sii daaya aniga run may ka tahayna asxaabtaada u sheeg xabsiga inay ka soo baxsadaan maariyan uu sheeg inuu ka soo baxsado idinka sharaf aad leedihiin ma lahan idinka arrimo siyaasadeed ayaad ka hadlaysaan waa idin baryayaa maariyo aniga haddaa xogtiisa idiin sheego wuu dilayaa aniga wariyaa inaad qirato ayaa kuuran doqon doqon ku dhalay sheeg ayaan ku dhahay waxaad ogtahay waa inaad ii sheegtaa haddii kale jirkaada hadal ayaan u jajabinayaa hadal ayaan ku dhahay hadal wariyaa baastiri waan ku sheegayaa maariyo aniga arrimihiisu waa idiin sheegaya laakiin waxaan rabaa asiga intuusii dilin inaad dishaan xogtiiso dhan aniga hal idiin siinaayo qaybta hoose waa guriga taraagar oo amniga ahaa amni ma sii noqonaysa meeshaas wixii ka dambeeya hadda
meeshaas waa meesha si asxaabtiisa baasketka ku ciyaaraan waxay ila tahay inuu security qaas oo leeyahay waxaa macquul ah anaga inaan dawo joogno inuu ogyahay waa ognahay shaqadan qabanayna soo maahan anaga haddeertaan waxaan ku sii wajahannahay meesha uu ku sugan yahay Brian. wuxuu yahay mudana dhanka koonfureed xoogaa xabadaan ka maqluunaa qishaa samayse niyo aan qish ma samaynin niyo waxaad ogaataa marka ugu dambaysa inay ahaanays qishkaan ugu samaysa hal waddo keliya ayaa jirto waa inaad safar aadaan safarka markaad aadaanna waa inaad dhammaantiin iskala qaybisaan hadalkayga macnihiisa soomaada fahmina dhaqaaqina qofka dhaqaaqa iska jiro lafaha ayaa laga budaynayaa meeshaada ka soo dhaqaaqi ha samaynana ayaan ku dhahay waa samaynaya gabadhan tiga iga joog waan ku faraxsanahay mar kale inaan kula kulmo iga tegno ha isdhaqaajin doqonyo istaag midaasaa sameyn hadda baa kuu sheegay haddii aad soo dhaqaado gabadhan kow ayaan ka siinaya meeshaada ha soo dhaafin ha soo dhaafin meeshaa joog ma fiicanta adiga xaaladaan see waay soo istaag qaybta hoose maxaad sugaysaa idil hadda waaya ku dhaqso idil hadda maxaa samaynaysaana familkaaga ayuu dili ninkaan maxaa u fiirsanaysaa maa dishid dilaan ku dhaqso samee aniga idinka waxaa tiin ma aqaan doqomayo meesha laiskugu keenay doqoyoni ma xasuustid miya iyo kalay weli ma soo xasuusanin miya waryaa haa waan ku xasuustaa caaw jaanisaan ku haystaa ninka dil marka dhaqso waan dilayaa dil dhaqsee aniga askari ayaan ahay noocaaga camal inaan u dhaqmo ma aha sidaas darteed ayaan kugu sii daynayaa maanta maxaa kugu dhac saaxib maa woodin miya maa samaysid iska daa meeshaan meel logama baxayo asaga aniga nin jaajuusa maahi nimanyow isii daaya aniga isii daaya aniga aniga ninkan ma dili karo haddaad dili weysa anigaa dilaaya marka dilaan ku dhahay ninkaan dhaqso ninkan haddii aan dilo familkayga ma soo laabanayaan waad saxantaa adiga magaaladana ujeedaan aniga ayay xoreysantahay gebi ahaanteeda idinkana darooga ayaad raadinaysaan askar xun ayaa tiin maxaad iga qaadaysaan aamus doqonyahu doqon ku dhalay adiga ayaa doqon ah maxaad ka bedeli kartaa waxaan sameynaa aniga war ninka maxaa u tugsanaysaa maadishi u dhammay
qaybtan